بسم الله الرحمن الرحيم. صحافة ما صنتهاي وحالي ديكو يارناي إن ديكو ورجلينه وراء عنو كهالله مردويتو مدحوينها جمهورية الصوماليلاند وكجوابي سي وراء حسبه وقرأي لبي لاتنكي بشة سيدة maamulku xafiisyadu ahaa way xafiiskii ku socoto waraaqdu inay ugu horeyso hase yeeshee anagoo ka akhrinay saxaafadda iyo social media ayay waraaqduna soo gaadhay anagoo 22kii bishaan u qoray madaxweynaha anagoo tixgelinay xurmadda uu leeyahay madaxweynahan iyo awoodaha sharcigu siiyay madaxweynahaba waraaq ka kooban 14 bog oo aan hore u siinin saxaafadda anagoo dhowreynay inaanu jawaab rasmi ah ka helno madaxweynaha waraaqda 14 bog gaay madaxweynuhu kaga soo jawaabay waraaq hal bog ah oo runtii baalmarsan procedure-ka iyo shuruucda doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland anagu warqada waxaan ugu qoray haybada uu leeyahay madaxweynuhu iyo awoodda uu siiyay sharcigu hase yeeshee sida ka muuqata waraaqdiisa iyo jawaabtiisa kooban waxa uu noogu soo jawaabay afkii xisbiga kulmiye isagoo gudoomiyihii xisbiga kulmiye waxaanay baalmarsan tahay procedure-kii uu mari lahaa waraaqdan uu qoray oo koobaysay dhaliilihii maamul iyo gafafkii laga galay xeerarka doorashooyinka kana koobnaa 14 bog oo cuskanay dhammaan shuruucdii iyo qodobadii procedure-ku wuxuu sheegayaa xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo madaxtooyadu ee xeer number 20 2001 qodobkiisa 14aad waxa uu sheegayaa asbaabta laga qaadi karo commissionka xilka oo qodobka 14aad faradiisa koowaad oo tilmaamaysa haduu jabiyo shuruud kamid ah shuruudihii lagu soo doortay iyo markuu xilkiisa u gudan kari waayo karti darro faqrada labaad ee qodobka 14aad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanku waxay tilmaamaysaa markay arrintaasi timaado ee la dareemo in madaxweynuhu magacaabo guddi farsamo oo u diro arrinta dabeedna uu ku go'aan qaato waxa la yaab leh madaxweynuhu qodob qurab kuma cuskan waraaqdiisa waana haysataa waan siin doonaa hal qodob sharci ah wuxuu iska soo qoray waxay baalmarsan tahay shuruucda doorashooyinka bal ha sheego qodob kamid ah qodobada ay baalmarsan tahay waraaqdan uu qoray oo cuskatay dhammaan shuruucdii loo baahnaa saa idin sheegay madaxweynuhu waraaqda halka bogay ay hor taala wax sharciyada oo u cuskaday may jirin madaxweynaha kama nafilaynin inuu marxaati u noqdo commissionka waxaanu ka filaynay xilka madaxweynenimo iyo garsoor arrimaha u yimaada inuu ka garsooro isagoo u raacaya shuruucda qarankani leeyahay waxa maragma doonto ah in madaxweyne ku-xigeenkiisu iyo Faysal Cali Waraabe ay labaduba qireen in ku shubasho ay dhacday doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland halka uu muusana ka yiri si hufan u hagaagsan aan wax dhayro lahayn bay u dhacday arrintaas waxay la tahay inay cudurdaar jaban tahay in xisbiga wadani uu doorashada dib u dhigayo doorashadii waxaa ka hadhay sanad arrin ugu weyn maaha hore inoo soo martay doorashadii 2010kii ee madaxweyne Siidaan iyo madaxweynaha noqday in commissionka la bedelo 6 bilood ka hor xilliga doorashada marka iyadoo sanad ka harsan yahay
in lagu marmarsoodo xisbiga wadani baa dib u dhigaya waxay la tahay in sabab jaban ay tahay sidinaba uma suurtoobi karto in commissionkani uu doorasho dambe qabto sababtoo ah waa xeerbeegtii dhaqanka soomaalida iska daa laba qof hadday is qabtaan haddii xeerbeegtii la saaro oo midyaa kuma kalsooni dee waa la bedelaa hawshu intaa leeg xisbi ka mid ah axsaabta qaranka hadduu yidhaahdo kuma kalsooni iyadoo loo raacayo qodobada aanu tilmaanay ee xeerku tilmaamay waxaa waajiba in la bedelo sinama uga suurtogelaysana inay doorasho dambe qabtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.